السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا maantay waxaan joognaa beerta Rays oo kamid ah beeraha magaalada Boosaaso ku yaala loona dalxiis tago. waxaan su'aalo dhowr ah iyo aan weydiin doonaa dareenkooda shacabka ku sugan beerta. Soo dhawow. waa dhaweey walaal. dareenkaaga ka waran bal ciidihii hore ciidahan maanta waxaan ku ciideynaa beerta Rays dad badan baa isugu yimid bal ka waran. ما شاء الله نبتقلي أن كعيدني هذا غير باصص هاي أما جارهان قبل كبري أردن الحمد لله رب العالمين ده يوم هالسقناتي صدقي بيش رمضان وسوق كامل لي وحافر حد وين المسلمين تأردن سيما ضيسان أما سي مارتي الأردن كري أردمان إن هالمرو عيدين الحمد لله رب العالمين وكفر حسنا سن نبتقليا برواقع مركي كوباد أما يدي كوباد من أردن كرو سن نبتقليا أو سنة كاس أردن أما سنة بركي قدام بيسين نبتقليا بيحط أي تاي بوساسو إن أنا نبتقليا كعيدني أنا جا يوم مجتمع دمان قبل كبري الحمد لله رب العالمين وسود وين إلهي محضوس قناتي وحكى له إلهي مهدي سرحمات يبرواقع يروبنا نكجرنا الحمد لله آدي آدم وفرح سنة markii ugu horeysay alan ku ciidid markii ugu horeysay weyn ciida aan rays ku ciido laakiin magaalooyinka meel kale oo magaalada Boosaaso meel goobo kale aan ku ciidi jiray inta badan laakiin maanta ciidan maxay kaaga duwan tahay ciidii kale ciidan waxay iga duwan tahay dhammaan muslimiinta in badankeeda ama waxa la oran karaa inay hal mar wada ciideen oo arintaas aad farxad u weyn oo maartay muslimiinta arin aad ku weyn oo maartay la kala ciidi jiray maalmo kala duwan waqtiyo kala duwan laakiin dhammaan waxa la oran karaa muslimiintu ay hal mar inay wada ciideen taas wax weyn oo farxad oo maartay hore nooga duwan hadaan nahay dhammaan shacab weynaha muslimiinta ama shacab weynaha Soomaaliyeed halkan niyaa si gaar uga salaamaysa oo aad la qaybsanaysaa munaasabadda ciidda halkan waxaan ugu horeyn salaamaya hooyaday inda deeq xasan faarax oo ku nool gobolka Cayn gaar ahaan degmada Wudud iyo nawaaxigeeda waxaan kala salaamayaa caruurtayda iyo xaasaskayga Xamdi Maxamuud Axmed Xamse Ismaaciil oo aan aad iyo aad u jecelahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ciideeda nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashashu gaara aad iyo aad baan u salaamayaa xaasaskayga iyo hooyada iyo familygayga oo dhan oo dal iyo dibadba kala jooga soo dhawow waa dhawaay walaalaha ka waran bal dareenkaaga munaasabadda ciidda maanta waxaan ku suganaa beerta Rays markii ugu horeysay aad ku ciidid Boosaaso waa xilligan oo kale marka hore hadaan dareenkayga ka hadlo runtii aad ugu faraxsanahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ma aha markii ugu horeysay oo aan ku ciido magaalada Boosaaso anigu reer Boosaaso ahay ciid badan halkan waan ku ciiday laakiin ciidan waxay kaga duwan tahay waxa ku ciidaya beerta Rays oo runtii dadweynaha reer Boosaaso inta badan ay isugu imaadeen saa u joojin jawi farxad halka qaadanaya bal waxa ka sheekaysaa ciidii hore ciidan maxay farqi u dhaxayaan wallaahi ka muslimiin ahaan runtii ciidan waxay uga duwan tahay ciidii hore sida la socotid walaalaha reer Filistiin ciidan wuxuu u tahay ciid murugaysan oo waxa weeye Yahuuda waxay ku hayaan weerar muruga ba ka jirta dhankooda marka ka muslimiin ahaan dhuma ka faraxsanahay dhanna ayaa kala murugoweena ciidan ciidii hore intaas kaga duwan tahay bal ka waran waxa waaye yaad halkan ka salaami lahayd oo munaasabadda ciidda farxad la qaybsan lahayd haddaan dhaho waxa waaye ciid baan salaamaya runtii dee asxaabteedii dadkii aad u tira badan yihiin marka guud ahaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland baan runtii waxa weeye aad u salaamaya waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo kullu caam wa antum bikhair magacayga Sabriin Axmed bal dareenkaaga ka war maanta waxaan joognaa beerta Rays oo ku taal magaalada Boosaaso waa beer aad u weyn oo loo dalxiis tago dad badan ay yimaadaan bal markii ugu horeysay miyaa aad timaadid may markii ugu horeysay ma imaado dhowr jeer ka horeysay waan sanadkii ka horeeyay ka waran bal ciidihii hore iyo ciidahan maxay kala duwan yihiin wallahi ciidihii hore ciidahan Boosaaso waxay ku kala duwan yihiin ciidan badan dadka badan baa jooga ciidul fidr ciidihii hore inkastoo dadku ka xagaabixi jireen magaalada dhaagiska ila ay ahayd ciidan laakiin dadku halkan ku wada soomeen dadka badankood ma sha Allah shacab badan baa halkan ku iiday family badan munaasabadda ciidda awgeed iyo cid khaas oo salaamaysa ma jiraa ها هويدي معانا مريم محرسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دودا walaal waan dhawahay anoo magacayga ku bilaabayo Xasan Abdulqaadir dhamaan waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta ummadda muslimka joogto maanta inkasta ciidii hore ciidda ka duwan tahay ciidda maanta aad bay dadku ciidaan si farxadaysan dareenkaaga bal ka sheekay farxada aad dareenkayga aad iyo aad lama soo koobi karo
hadaa bishii rabadaan ay khayr iyo barwaaqo iyo bashbash nagu dhamaatay bal ka waran hadaan ku dhamaantay cid halkan ka salaamo farxadda ciida munaasabada awgeed la qaybso aad iyo aad baan ugu salaamay ugu horeyn waxaan ka salaamay hooyaday iyo aabahay iyo dhammaan family-ga oo dhan iyo muslimiinta oo dhan aad iyo aad bay ciidii hore uga duwan tahay maadaama uga duwan ciidii hore waxa laga cabsoonayo covid 19 baa laga cabsoonayo markii ugu horreysay boosasku ciido miyaa xilligan oo kale ciidan markii ugu horreysay aan ku ciiday way rabaan inkastoo aan joogo 2016 ay ilaa 2000 bal ka waran dareenkaaga maanta waxaan ku sugannahay magaalada Boosaaso gaar ahaan beerta Rays bal ka waran dareenkaaga farxad iyadoo lagu jiro maalmihii ciida wallahi waxaan dareemayaa farxad aad u weyn baa dareemayaa sababtoo waxa lagu jiraa maalin farxadeed baa lagu jiraa maalinta labaad oo lagu jiraa muslimiintu ciideen marka farxad weyn baa dareemayaa ciidii hore iyo ciidakan bal adiga farq ahaan maxay kaaga duwan tahay wallahi muslimiintu kullu waa wada ciidaan laakiin farq weyn baa u dhaxeeya sababtoo waxaan dareemaynaa jawi degan iyo farxad kala duwan baa dareemaynaa bal ka waran beerta Rays dadku say galabta u joogaan wallahi shalay iyo maanta dadku aad bay ugu badan yihiin waliba sida shalay waa ku badnaayeen maanta waana ku badan yihiin dadku cid gaar ma jidda oo halkan aad ka salaamaysid wallahi waa badan yihiin hawa jiraan marka salaamiya dadkaas soo dhawow wadhow bal ka waran maanta waxaan joognaa beerta Rays oo ay dadku badan ay joogaan oo ku ciidayaan bal dareenkaaga gaar ahaan dareenkayga gaar ahaan aad baan u faraxsanahay maanta waa maalin weyn waa maalin ciida dhammaan ummadda muslimiinta waxaa la ciid wanaagsan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed rabadaantani waxay nagu soo dhamaatay alxamdulillah caafimaad iyo barwaaqo waxaan leeyahay okay bal ka waran maxaa lahaye markii ugu horreysay ku ciiday halkan maya marar fara badan waan ku iiday laba iidood kaliya ka maqnaa runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ku iido Boosaaso in badan joogto iyaad halkan ka salaamaysaa oo la qaybsanaysaa munaasabada ciidda awgeed waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed intay taqaana gaar ahaan familkayga iyo xaafadayga waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta joogtaan kullu caam wa antum bikhair waa Cabdullaahi Cabdulxiid bal ka waran dareenkaaga maanta waxaan ku sugnahay magaalada Boosaaso oo waliba beerta Rays ka waran dareenkaaga ciidda dareenkaygu aad iyo aad buu sareeyo walaal waa maalmaha ciidda waxaan soo nasasho tagnay beerta Rays shalayna waxa ahayd ciidii maantana waa maantii labaad waa ayaamaha ka dambeeyo iska ciid marka dareenkaygu aad buu u faraxsan yahay ummadda islaamka waxaan ugu rajeynayaa ciid wanaagsan ciidii hore iyo ciidatan bal ka waran maxay dareenka ku kala duwan yihiin walaal ciidii hore iyo ciidatan isla mid ciid waa laakiin tan waxay kaga duwan tahay tii hore dadkii xaga bixiyo magaalada Boosaaso laga xaga bixino dadka wali joogaanin oo aad magaalada masquul u tahay oo bay kaga duwan tahay ciidii hore magaalada dadka ku yaraan ciidanka dad beerta Rays ka waran farxadda see beerta Rays ugu faraxsan tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaal meel loo habeeyay weeye inay lagu nasto oo qurux badan oo dareen fiican bay meeshtan leedahay soo dhaw walaal dhahan bal dareenkaaga ka waran maanta waxaan joognaa beerta Rays oo waxa weeye maalmihii ciidda baa lagu jiraa bal dareenkaaga iyo markii ugu horreysay aad Rays maadidba miyaanu xaafadaha Rays dariskooda waa kamid ahay marka maanta waa maalin ciid oo meesha tan oo centerka magaalada dhan baa la iskaga yimaadaa maadaama shalay ciid ahayd maanta waxaa moodaa inay sunna iyaduna ciid ahayd moodaa macnaha shacabka iyo tirada baxad intay leeg tahay marka waa xasiloonida iyo ammaanka jira magaalada bal dareenkaaga ka waran waxa weeye ciidahan iyo ciidihii hore maxay kala duwan yihiin farqiga u dhaxeeya والله wax farqiga ma dhaxayaan ismid weeytii waxa shacabku si aad u yimaadaan meesha u imaan jireen hay bal halka diyaad ka salaamaysaa oo munaasabada ciidka oo aad fariin uga diraysaa salaameed wallahi waxaan ka salaamayaa walaal qof walba oo yaqaan macna waxa ay arkaan salaamayaan soo dhaw wandhay walaal ma sha Allah magacaaga ku bilow may way Ibrahim Xasan Bariise ka waran dareenkaaga ciidda maanta waxaan joognaa beerta Rays oo lagu ciidayo dad badan ay joogaan ما شاء الله والله وحنا ليهي حنبليو إدمار كل عام وأنتم بخير ومت صومال ميول بيتشوغان والسلامية خاصة والسلامية فاميلك ميول بيتشوغان هو أبهي لما فاميلك أو أصحابك كل والسلامية وحنا ليهي كل عام وأنتم بخير إذا إيدي رحنا ولا جالسين مركو رسمية تماديد أو بيرت رئيس ما إذا بدن كل يوم كإيدي لكن إذا إيدك بدن أو مثلا كسي فاهم ما بعرفنا إيدك وحنا ليهي استفهام بالله إيدي عيدي هو عيدهن بالفرق محا كدحي أو محا كل دوين قلبها وكل دون ده أمد كل ويجيدان إيد كان إيد في هراني كل دوين ما شاء الله ضد أبي حتى بوساس لا يعرف بهن إيد كان هويان
ummadda waxaa leeyahay mataqaanaa kolba odur waa jiraa laakiin laxba waxaan kulli ilaahay naguma rido laakiin iidkii hore iidkana ka sii fahmaysanayaa yaad halka salaamaysaa waxaan ka salaamay dhammaan familkayga hooyada aabahayga dhammaan adoo intaan asxaabtay kulli waa salaamay khaasatan marwadayda iyo wiilkayga Cabdirsaaq kulli waa salaamay adoo magacaaga ku bilaabaya ani magacayga Kennedy waaye Kennedy photograph marka waan ku faraxsanahay wareysigaas ina aad li wareysto marka wixii firkaygana waan ka hadlayaa balka waran dareenkaaga beerta race baan joognaa dad badan baa isugu yimi waxa weeye adoo qiimeyn ku sameynaya waqtiyadii hore iyo waqtiyadan balka waran maxay kala duwan tahay wallahi dareenkayga aad ayaan u faraxsanahay waxyaalo badan baa isbedelay xagaagii hore Boosaaso xisaan hadda loo buuxi jirin waxyaalaha isbedelay hadda waxaad arkaysid race iyo maandeeqan arkay shacabku aad u loo buuxin magaalada Boosaaso hadda xagaabax iyo waxa awal lagu maqnaa laakiin sanadkan waa wala fadhiyaa cid ka tagtay magaalada Boosaaso ma leh marka waxyaalo badan ayaa iska bedelay aad ayaan u faraxsanahay magaalada Boosaaso in laga bixin shacabka dhan lagu dhan yahay markuu horeysa magaalada Boosaaso aad ku ciidid waxa lagu qiyaasaa magaalada Boosaaso in aad u kulushahay xilligan oo kale ruwaarun xilligan oo kale aad bay kulushahay laakiin anagu aan ku dhalanay qowweynaa tahay marka daan reeb Boosaasanay marka waan ku faraxsanahay aad ciid ka fiican ciid ka shacab badanna ma jirto halka diyaad ka salaamaysaa oo la qaybsanaysaa munaasabada ciidda halkan waxaan ka salaamayaa asxaabteeda Asmar photograph Aysar photograph UK photograph Sir photograph dhammaan iyo ani walaalkay Eid photograph marka waxaan leeyahay ciid mubarak ciidul caafiya sanadkan insha Allah sanadkiisa dambe baraaqiyo bashbash ilaahay nagu gaarsiiyo soo dhaw waa dhaw magacaadu bilaabaya Cabdiqani Baars ka waran maanta waxa joogtaa beerta race oo maalmaha ciida lagu ciido dadku ay yimaadaan markuu horeysa aad maadmiya may waliga waa imaan jiray laakiin maanta aad ayaa ugu faraxsanahay in beerta nabadda ay race imaado familku kula socdaan famil dhammaan anaga dhan waa imaanay markii ugu horreysay miyaa Boosaaso aad ku ciidid xilligan oo kale iyadoo lagu yahay inay kuleelo tahay halkan yaad farxadda kula qaybsanaysaa oo si gaar ah u salaamaysaa waalidka ama dadka friendiskayga gaar ahaan hooyaday Riyo Gabayre ama aabahay Baarsiisaan magacaaga magacay Faadima ka waran maanta waxaan joognaa magaalada Boosaaso gaar ahaan beerta loo dalxiis yimaado garden race bal dareenkaaga ka waran markii ugu horeysay maadba may mar badan baa imaaday laakiin markii ugu horeysay ugu farxad badneed bisha ciidka ah weeyaan ma sha Allah bal ka waran maxaa lahay xilliga iyadoo kuleelo tahay magaalada laga xaga bixi jiray bal ka waran markii ugu horeysay way ku ciidid miyaa markii ugu horeysay aan ku ciido waayaan waxa waaye yaad halkan si khaas uga salaami lahayd munaasabada ciida ma sha Allah dad badan aan soo koobi karin baa ka salaamaya familkayga friendiskayga kulli oo magacayga waxa Axmed Salaad Axmed ka waran dareenkaaga farxadeed beerta race baa joogtaa waad ku ciidaysaa galabtay waxa dareenkaaga faraxsanaa wallahi family mu kula socdaa may wallahi cidna kaliya markii ugu horeysay ku ciid Boosaaso iyadoo kuleela may sankayga horeysay bal ka warnay halkan ka salaamaysaa ka salaamaya iyaday walaalahay iyo hooyaday iyo familigayga intaas oo dhan baa ka salaamaya saaxiibada iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank